la kulanka madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe oo la kulmay halyeeyga Soomaaliyeed Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax waxa uu farxad geliyay shacabka Soomaaliyeed waxay taasi ka barqaatay kacay dadka Soomaaliyeed inay si sunnaceen qabiil ahaan oo ay ka midaysan yihiin qadiyada Soomaalinimada iyo la dagaalanka xukuumadda Tigreega ama Xabashida sawirada muuqaalka ah ee baraha bulshada lagu baahiyay ee muujinaya Axmed Madoobe iyo Cabdikariin Qalbi Dhagax oo wada fadhiya qol waxa uu naxdin iyo qaraacan ku ridaya kooxda qiyaano qaran ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu hogaamiye ama horjoogaha u yahay maxaa yeelay waa kuwii sidii xishodarrada ah ugu sheegay halyeeyga Soomaaliyeed inuu yahay argagixiso iyagoo cadawga Itoobiya u gacan geliyay liidnimada ugu weyn ee kooxda Farmaajo ay ku kacay waxay ahayd in Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax oo ahaa nin caalankan Soomaaliya u dhintay dadkiisa loo laayay inay afduubeen oo ay xabashida u gacan geliyeen iyagoo aanan haba yaraatay wax xil iska saarin caruurtiisa iyo qoyskiisii Muqdisho deganaa waxa la filayay oo dad badan filayeen in qoyska Cabdikariin Qalbi Dhagax ay kooxda Farmaajo gacanta ku dhigaan oo ma taqaanaa ay si wanaagsan ula macaamilaan oo ay meel dejiyaan maadaama aabihii biirayay ama u socday u dhaqaaqayay ay cadawga u gacan geliyeen laakiin taa beddelkeeda waxa dhacday in habeen madow Saadaq John taliyahan nabad sugidda Soodoonka ee gobolka Banaadir iyo wasiirka warfaafinta xilliga ninkii ahaa Cabdikariin Cumar Cismaan oo liiqan Cabdiraxmaan Yirisow ay habeen madow u dhaceen gurigii Cabdikariin Qalbi Dhagax ee ciishada ah ee qoyskiisa deganaayeen kadibna ay si xun u garaaceen caruurta iyo hooyadii dhashay iyagoo ugu hanjabay in haddii wiilka mar dambe isagoo oyni TV laga arko Itoobiya loo gacan geli doono taasi waxay ahayd qaraacan iyo tii ugu xumeyd ee dhagahaygu maqlaan taariikhda Soomaaliya inta aanu gelnayna qaada dhigo doorka maanta ay ciyaarayaan madaxweynaha Puntland Cabdiweli Gaas iyo madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe bal shacabka Soomaaliyeed u sheego Cabdikariin Qalbi Dhagax dadkii la dhashay ee kuwii la dhashay kuwa dhalay halkay mareen sidee xabashida ula macaamishay aan ku bilaabo al-shahiid Sheekh Ibraahim Sheekh Muuse oo 2009kii lagu dhex dilay jeelka ama xabsiga arxanka daran ee loo yaqaan jeel ogaadeenaya Allah u naxariisto Sheekh Ibraahim Sheekh Muuse oo ahaa nin la dhashay Cabdikariin Sheekh Muuse shahiidka la dilay ee Sheekh Ibraahim wiilkiisa Sheekh Maxamed Sheekh Ibraahim Sheekh Muuse al-shahiid ayaa sidoo kale sanadkii 2009ka lagu dilay xabsiga arxan darrada badan ee jeel ogaadeen sanadkii 2010kii ayaa sidoo kale al-shahiid Faarax Sheekh Yuusuf Sheekh Muuse waxa dilay cadawga Itoobiya waxa loo diray Qalbi Dhagax dartii iyo inuu yahay wiil oo adeer u ahaa taariikhdu markay ahayd sanadkii 2013kii ayaa sidoo kale Itoobiyaanka ama xabashida waxa ay dileen Cabdikariin Sheekh Muuse waalkii al-shahiid Allah u naxariistay Sheekh Cabdiqaadir Sheekh Muuse waxa loo diray inuu ninka ahaa in la dhashay Qalbi Dhagax oo qura sanadkii 2012 ee waxa ay xabashidu deegaanka loo yaqaan marsin ku direen Faarax Sheekh Muuse oo ahaa Cabdikariin Qalbi Dhagax waalkii Ilaahay u naxariisto shahiid isla sanadkaasi 2012kii la dilay Faarax waxa lagu ag dilay oo la dilay Ilaahay ha u naxariistay Cabdikariin Qalbi Dhagax walaashii al-shahiid Ardo Sheekh Muuse waxa lagu dilay deegaanka Marsin waxyaabaha xabashida ay ku kaceen ee yaabka badan waxa kamid ah in isla maalintaasi ama taariikhdaasi sanadkii 2012ka deegaanka Marsin meesha lagu dilay dadkaasi sidoo kale lagu dilay gabar da'yar oo 17 jir ahayd oo la dhaltay Cabdikariin Qalbi Dhagax gabadhaasi oo magaceedu yahay Felis Sheekh Muuse haddaba qoyska sida loo baabi'iyay ee u samray ee Soomaalinimada dhamaantood u dhintay ayay la yaab ahayd in Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kooxdiisaba ay sidoo kale qofkii ugu dambeeyay xabashida u gacan geliyeen laakiin Qalbi Dhagax neenaastaasi si sahal uga bixin ma noqonin baroorta ma noqonin nin ku dhaca dabinka gumaysiga ay u dhigeen wuxuu ahaa ama uu yahay wali nin ku adkaysanaya Soomaalinimada kula dhaadanaya inkastoo saasaanta muuqatay oo agtahay in Cabdikariin Qalbi Dhagax uu ka soo baxay xabsiga gumaysiga Itoobiya haddana la yaabka ugu weyn waxa uu yahay sida uu xurmad darrada u dhaqmay beesha uu ka dhashay Cabdikariin Sheekh Muuse Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ma xurmaynin qadiyada Soomaalinimada mana xurmaynin tan guud ee qabiilnimada daaroodka mana u xurmaynin tan beesha uu ka soo jeeday ee ogaadeenaya Farmaajo godobta uu ka galay shacabka Soomaaliyeed iyo godobta uu ka galay
qabiilka uu ka dhashay daaroodka iyo godobta uu ka galay dadka u dhashay qabiilka Ogaadeeniya midba kala ka daran waa marka hore farmaajo marna ma u xushmaynin Soomaalinimada mana u xushmaynin qabiilka uu ka dhashay daaroodka mana u xushmaynin qabiilka Cabdikariin Sheekh Muuse ka dhashay ama beesha uu ka dhashay Ogaadeen waxa uu Cabdikariin dhiibay xabashada u dhiibay isagoo hal senator ama hal siyaasi ama hal aqoon-yahan oo qabiilka u dhashay Ogaadeenka ama absamaha aan u sheegin ninka inuu xabasho u dhiibayo farmaajo marka uu dhiibay qalbi dhagax caruurta uu dhalay marnaba xisaabta kuma dirin wuxuu ka soo qaaday looma ooyaan aan dan laga lahayn halkii laga sugay inuu u gurmado sida hore u sheegay gurigooda ayuu ugu dhaco oo garaacay isagoo ku qasbay in iyagoo aan haysan baawraac ay si habqana ugu baxaan xiriyaha qaxootiga ee dhaabkay halkaas oo hadda ku sugan yihiin inkastoo ay dhalan leeyihiin madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe iyo madaxweynaha Puntland Cabdiweli Gaas haddana labaduba waxay noqdeen laba nin oo u soo baxay shacabka Soomaaliyeed xilli xaalad adag ay wajahayeen waxaan uga jeedaa in uu dejiyay xaaladii siyaasadeed ee xumayd ee ka taagneyd Imaaraadka Cabdiweli Gaas ayaan u socday halka Axmed Madoobe uu noqday hogaamiyihii ama siyaasiga ugu horeeyay ee shacabka Soomaaliyeed u laalqaboojiyay xabsigana ku booqday Cabdikariin Sheekh Muuse qalbi dhagax oo rajo weyn aynu ka wada qabnadana shacabka Soomaaliyeed inuu xorriyad dib u helo si kastaba ha ahaatee shacabka Soomaaliyeed waxa ay naawilayaan oo aad mataqaan ugu haawiyayaan habeen iyo maalin in la soo daayo haliiga Soomaaliyeed ee Cabdikariin qalbi dhagax laakiin mar walba waxa diiwaan ku qoran oo qof kasta Soomaaliya loobi doonin kooxdii ku tilmaamtay argagixisada oo aan ku xasad doono muuqaalka soo socdo oo uu akhrinayo wasiirkii xilligaasi warfaafinta Cabdiraxmaan Umar Ismaan Cabdiraxmaan Yariisow oo godobtii uu galay ay farwaaweyn ku qoran tahay ummadda Soomaaliyeednu ay kala xisaabtami doonto maalintii ahaato maanta way taariikhda 6 Sebtembar 2017 golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa yeeshay kulan aan caadi ahayn oo uu shir gudoominayay ra'iisul wasaaraha xukuumadda mudane Xasan Cali Khayre arrimaha kulanka looga hadlaya ahaa arrimaha amniga qaranka iyo dhacdadii sarkaalka jabhadda hubeysan ee ONLF golaha ayaa ugu horeyn warbixin ka dhageystay hay'adaha amniga ee la xiriira xaaladda amni ee dalka guud ahaan gaar ahaan dhacdadii sarkaalka jabhadda hubeysan ee ONLF waxayna sheegeen inuu abaabulayay falal lid ku ah amniga dalka oo in muddo ah ka dhex waday dalka gudihiisa xiriirna ula lahaa kooxaha argixisada ee al-shabaab warbixinta amniga qaranka kadib ayaa ra'iisul wasaaruhu wuxuu ka codsaday golaha wasiiradu inay ka doodaan falanqeeyaan eegaana dhanka siyaasadda iyo dhanka sharciga guud ahaan wasaaradda cadaaladda ayaa warbixin dhanka sharciga laga dhageystay oo goluhu ka siisay ku aadan habraacyada muhiimka ah ee sharciga dalka iyo heshiisyada hore oo ay wada galeen dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawladda federaalka Itoobiya golaha waxa la hor keenay nuqulka heshiisyo ee dawladda federaalka Soomaaliya ee hore ula gashay dawladda Itoobiya ee 7 Juun 2015 kaas oo dhanka Soomaaliya oo u saxeexay wasiir dawlihii markaas madaxtooyada jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya xildhibaan Maxamed Salaad ee dawladdii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud heshiiskan ayaa u aqoonsanaya kooxaha hubeysan oo ay ka mid yihiin al-shabaab iyo jabhadda ONLF inay qatar ku yihiin amniga labada dal meelna looga soo wada jeesto oo labada dal iska kaashanayaan si wada jir ah waxa sidoo kale la hor keenay golaha wasiirada heshiis la saxeexay 2 May 2016 oo dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawladda federaalka Itoobiya ku heshiiyeen in ay si wada jir ah isaga kaashadaan la dagaalanka nabadiidka iyo argagixisada si loo xaqiijiyo sugidda amniga iyo xasiloonida labada dal heshiiskan isaga ah 2 May 2016 waxa markaas dawladdii federaalka u saxeexay wasiirkii hore boostada isgaarsiinta mudane Maxamed Jaamac Mursal Geelle iyo mudane Cabdikariin Xuseen Guuleed qodobada heshiiskaas oo ku ugu muhiimsan ay ahaayeen in si buuxda aan isaga kaashano la dagaalanka iyo ciribtirka kooxaha argixisada gaar ahaan al-shabaab iyo ONLF dood dheer kadib golaha wasiiradu waxay go'aamiyeen arrimahan kow in siyaasadda dawladda federaalku ay tahay mid ku qotanta iskaashi dalalka geeska Afrika ah xoojinaysana nabad ku wada noolaanshaha mandaqadda xoojinta dhaqaalaha iskaashiga iyo amniga isla markaasna aan jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya loo ogolayn in jabhado hubeysan ama kooxo argagixiso ah ay gabaad ka dhigtaan labo golaha wasiiradu waxay hoos ka xariiqeen in shakhsigani uu ahaa sarkaal sare oo ka tirsan jabhadda hubeysan ee ONLF isla markaasna uu falal lid ku ah
amniga dalka uu ka dhex waday geyiga Soomaaliya iyo mandaqada iskaashi dhowna la lahaa kooxaha argagixisada ee Al-Shabaab. Dowladda Federaalka Soomaaliya waxa ay diyaar u tahay inay kaalin firfircoon ka ciyaarto wax walba oo ka qayb qaadanaya nabadeynta mandaqada si waafaqsan dastuurka iyo shuruucda dalka. Dowladda Federaalka Soomaaliya waxay garowsan tahay doorka ciidamada wadamada dariska ah ee Djibouti, Kenya, Ethiopia, Burundi iyo Uganda ay si hagar la'aan uga garab dagaalamayaan ciidamada qaranka Soomaaliyeed si dalka loogu soo dabaalo xasilooni waarta. 4 goluhu wuxuu mar kale hoosta ka xariiqay heshiisyadii iskaashi ee dowladda Federaalka Soomaaliya iyo dowladda Federaalka Ethiopia ay kala saxiixdeen sida heshiiskii 7 Juun 2015 iyo heshiiskii 2 May 2016 oo tilmaamaya in dhan looga soo wada jeesto arrimaha amniga iyo nabad ku wada noolaanshaha mandaqada. Heshiisyadan waxay si cad u qeexayaan kood in cadowga labada dhinac ee Al-Shabaab iyo jabhadda ONLF ay qatar ku yihiin amniga labada dal meelna looga soo wada jeesto oo labada dal iska kaashadaan si wada jir ahna ula dagaalamaan. 5 waxa reeban isla markaasna mamnuuca in Jamhuuriyadda Soomaaliya gudaheeda ay kooxaha argagixisada iyo kooxaha hubaysanba ka dhigtaan gabaad ay dagaalada iyo colaadaha ka horinayaan oo ay kaga duulaan wadamada jaarka. 6 dowladda Federaalka Soomaaliya waxay ka qaadi doontaa tallaabooyin cadcad oo sharciga waafaqsan cid kasta oo isku dayda inay jabhado hubaysan ka dhex abuurto dalka gudihiisa ama ay taageeraan kooxo argagixiso ah iyagoo maleegaya falal lid ku ah dalka gudihiisa ama iyo wadamada jaarka. 7 qodobka ugu dambeeya xukuumadda Federaalka Soomaaliya waxay dib u eegis ku sameynaysaa heshiisyadii ay dowladdii hore gashay si qabyatir loogu sameeyo wixii daloolooyin ah ee ka jira haddii ay jiraan loona waafajiyo habraaca sharciga ee dalka. waayahay haddaba haddii aad daawateen Soomaaliyay waxa weeye horaa loo soconayaa waa laga guulaysan doonaa cadowga ummadda Soomaaliyeed. dabaysha geedaha uma ruuxdo inay ciyaarsiisa idin leeyahay Dahal Calasow. haddii aad ka hesho fiidiyoga fadlan subscribe ku samey barta aan ku leeyahay YouTube-ka ee Waaga Cusub Media TV ama saaxiibkay channelkiisa Shactaro Somali TV. fadlan subscribe كل حرو مرة برنامج دينا Soomaaliya Soomaali baale. hordhiga mooshiinu ku
bulshada hagardahamayo hungiyo ciilbu bade haddaba barlabaankiyo mas'uul hawshiisi gabay amuun dalku ma qabe hordhiga mooshigu ku tago bulshada hagardahamayo hungiyo ciilbu bade hordhiga mooshigu ku tago bulshada hagardahamayo hungiyo ciilbu bade hordhiga mooshigu ku tago bulshada